gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo ganacsatada iyo bahda meediyaha ka soo qaybgalayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaa saakay rugta ganacsiga isugu wacnay warbaahinta muxuu ahayd dalka. ujeeddada aan isugu wacnayna waxay ahayd cabasho nooga timid kabaniyaal ka mid ah rugta ganacsiga waaweyn oo qaybo ka mid ah madaxda dowladda qaybo ka mid ah ay muxuu ahayd waxaan u munaasib ahayn hawada u soo mariyeen. arrintaas aanu rabnay inaan xaqiiqdeeda saaka sheegno oo aan ugu yeerno warbaahinta. xaqiiqdaas oo aan isleenahay warkii raadiyaal ka baxay iyo idaacadaha aada xoogaal uma ahayn dadka arrintaas maaragtay gudbiyey. marka sida xogta ah oo runta ah oo ay ku dhisan yihiin mabaadi'da shirkadahaas waaweyn aanu rabnaa inaan maaragtay meeshaan ka sheegno iyadoo qoraal iyo iyadoo oraalaba inaan sheegno. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha. waxaanu rajaynaynaa wax ku salaysan xaqiiqda inay muxuu ahay warbaahintu meeshan ka qaadi doonto. xaqiiqdaas oo aan isleenahay waxay muxuu ahaade aada ugu caddahay dukumentiyaalka ama dowladda ka soo baxay ama kambaniyaalka laftigoodu ay muxuu ahaade burasajirhaan ugu dhisan. kambaniyaalkaas oo ka mid ah rugta ganacsiga kambaniyaalka waaweyn oo ka mid ah aanu saaka xafiiska rugta ganacsiga ugu qabanay shirkan. waxaan rabaa haddan inaan dhowr kelmadood kusoo dhaweeyo intaan dukumentiga la akrin ka hor gudoomiyaha rugta ganacsiga si uu laba kelmadood uga yiraahdo. gudoomiye kusoo dhawow. asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ganacsatada wariyaasha iksoo qaybgalayaasha dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan ka bacdi waxaan rabaa marka hore inaan ka mahad celiyo waqtigiina qaaliga ah oo aad nagala qayb gasheen. waxaan kaloo rabaa inaan ka tacsiyeyno shirkadaha hadda nala jooga oo ay ka mid yihiin shirkadda barhal iyo shirkadda dhul iyo guri oo runtii shirkan jaraa-id ayaga daraaddood aan u qabanayno oon rabno bal inaan wax ku daaweyno war saxaafadeed oo qoran oo rugta ganacsiga ka soo baxayna waxaan noo aqrin doonaa agaasima ku-xigeenka. waxaan rabaa marka inaan marka u horeysa aan idinla wadaago aan idhaahdo rugta ganacsiga soomaaliya waxay u taagan tahay inay horumariso ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed, inay difaacdo danaha ganacsiga, ganacsatadana ay garab istaagto xumaan iyo samaamna inay unsur akhaaka daaliman oo madluumanna inaan ahaano annaga oo dhan insha allah haddii laa yidhaahdo. waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo rugta ganacsiga waxyaalaha hadda baryahan dambe aan aada uga shaqaynaynay oo aan rabno in ay kusoo kordhaan dalkeena waxaa ka mid ah warshadeynta dalka. oo warshadeyntu ay tahay waa qaybta ugu muhiimsan oo ama shaqo abuurka ah ama dalka horumarkiisa qaybta ugu weyn ah oo aan isleenahay wax badan ay dalka iyo dadka ka tari doontaa. iyo real estate-ka oo aan isleenahay isagana bilicda magaalada iyo quruxda iyo horumarinta iyo dalxiiska uu qayb ka noqon doonaa. labadaas sector aad waxaa moodaa si yaroo dhaawac yar ah inuu uga soo gaaray taliyaha ciidanka asluubta shir jaraa-id oo maalindhooda uu qabtay oo ku ficnayd shirkaasi intuusan qaban in marka hore in wada hadal la kulmo ay ku ficnayd oo shirkadaha laftigooda oo u yeero markay isfahmi waayeen rugta ganacsigu ay qayb ka noqoto. waxaan rajayn lahaa markaas in wax badan oo hadda bannaanka u baxay aysan bannaanka nooga baxeen. waxaan rabnaa marka in la dhiirigeliyo markasta maalgashiga dalka. waxaan kaloo oo xoogaa aada uga xunahay wasiirka cadaaladda oo isaga laftigiisu aan maalintii 29 bisha markii uu soo saaray hadalka taliyaha ciidanka oo isla soddonkii isla hadalkii ka ayiday isla markiiba warqad ku ayiday. waxay ku ficnayd in la hubsado wararkaasi sababtoo ah shirkadaha dhaawaca gaara ah oo mashriq iyo maqrib loo kala qaada ah waxay ku noqonaysaa muddo inay ka soo kabtaan. marka asarug ganacsi ahaan waxaan rabnaa marka in arrimahaas ka daba tagno oo wixii laga qaban kara aan ka qabanno una caddeyno si oo nidaamka iyo shuruucda waafaqsan in looga gudo barnaamijyada noocaasa oo aan laga dhaafo in tanaago iyo idaacado in la iskala hadlo. sidii hadda ka horba uu ra-iisul wasaaruhu ka dhawaajiyey waxaa ku fiican hadalladu inay noqdaan hadallo laysla soo hor fadhiisto sharcina la ismarsiiyo. waddankaana sharci uu leeyahay, maxkamado uu leeyahay, nidaam uu leeyahay. laakiin hadday noqoto in idaacadaha la isaga jawaabo waxay noqonaysaa in dhaawac ganacsigeena dalka soomaaliya uu soo gaaro. waxaan aniga laftiga aan goobjoog u nahay sida ay ku caddahay warqadda oo qoray wasiir Abiyan 5 bishii 2013
oo warqadaasoo ku saabsanayd rugta ganacsiguna ay qayb ka ahayd markii xabsiga dhexe oo isbitaalka Kaysane ay yiraahdeen waxaan u aqoonsanahay inuu xabsi yahay wali uu hadda isbitaal yahay waxay markaas ka dalbadeen shirkadda dhul iyo guri oo meeshaas ka bilaabaysay dhismo oo guddoomiyadeeda oo fadhiyo mudana Martella inay markaas ka durkaan xabsi ahaan in loo tixgeliyo oo laga durko dhulkaas oo yiraahdo 250 mitir waxaan rabnaa inay naga durugtaan saraakiil loo saaray 4 sarkaal sida ku cad dokumentiga ay isweydaarsadeen xilligaas oo anaga aan goobjoog u ahayn kadibna aan la tilaabeynay aniga iyo waliba wasiirka cadaaladda Abyan iyo wasiir ku xigeenka iyo taliya ciidanka asluubta iyo waxa isla soconay 4 sarkaal oo ku qoran warqadaha iyo shirkadda dhul iyo guri guddoomiyaheeda iyo tiimka isla socday meeshaan wada tagnay waa isla cabirnay halkaas marka darbiga ay dhul iyo guri ay ka bilaabatay inay ka jeexdo waxay kala ku heshiiyeen in dhulka u dhaxeeyana loo sameeyo inkastoo hadda uu deegaan noqdo dhulkaas oo hadda deegaan yahay laakiin barigaas waxay ahayd in dhulkaasina ay shirkadda dhul iyo guri ay qalabkeeda ay ku siisay in dhulka u nidaamiso waana loo sameeyay anaga marka waxaan ogeyn wanaagaas iyo shirkadaas oo shaqo badan hadda qabanaysa oo bilicda magaalada soo celinaysa marka waa ka xunahay in oo iyagoon is arkin oo shirkadii is hor fadhiisan oo isla gafin inay hadalkaas oo banaanka u baxo waxay dhaawac ku tahay shirkadii hadda Marina Beach oo ku tala gashay inay magaalo qurux badan iyo dhul qurux badan iyo amni badan ay samayso in dhaawac loo geysto waxaan kaloo rabaa inaan ka hadalno shir jaraa'idkeena kamid ah war saxaafadeedkeena ku soo bixi doona shirkadda Barha oo ah shirkad shamiitada dalka soo saarta oo warshad casri ah keentay warshadaasi dhulkeeda waxay ka kireysatay maxaan ku raadaa warshadii hilibka dhulkii oo lahaa bangiga dhexe waxa laga kireeyay shirkadaas Barha waxa ka kireeyay bangiga dhexe markii laga kireeyay waxay maalgelin ku sameeyeen lacag dhowr iyo 10 milyan oo dollar ah ay maalgelin ku sameeyeen warshadii la dhisay waa shaqo bilowday dad badan oo Soomaaliyeed ka shaqeeya wax badan oo qurux badan ka socda in marka maanta warshadii lagu tilmaamay in dhibaato geysanayso waxa ka fiican marka hore hadii xal laga gaari karo waxyaalaha ay tabanayaan inay ay la xiriiraan shirkadda Talisco ama ay rugta ganacsiga la socodsiiyaan si markaas aan xal ugu wada gaarno waxaan iyada laftigeeda aan ogeyn xabsiga dhexe laftigiisa in markii ugu dambeysay dawladii hore oo Maxamed Saad Allah u naxariisto ay ahayd in dhulkaasi loo aqoonsaday in lagu daro dekada oo lagu ballaariyo xabsigana meel kale loo raro oo xabsiga hadda xabsi casri ah wuxuu ka dhisan yahay maxaan ku raadaa meesha X control afgooye oo waliba xabsi aad u qurux badan oo aad u weyn waa rajaynayna in meelahaas oo kale xataa lagu kala fududeeyo oo ay si maaragtay ay u noqoto jans ay u helaan warshadaha laftigooda marka waxaan rabaa inaan warkay ku soo gabagabeeyo warshadaha iyo real estate-yada waxaan rabnaa in la dhiirigeliyo haddii wax laga tabanayana waxaan rabnaa in iska arag la soo fariisto ama shuruucda caadiga ah ee maxkamadaha iyo xukuumada la isla maro marka ka baad cid xaq leh marka la siiyo laakiin aysan noqonin wax telefono looga wada hadlo idaacadaha looga wada hadlo oo marka ka baad ay dadweynuhu aysan si kale u fasirin aysan meeshaasna ku istaagin horumarkii dalka oo shaki aan la gelin sababtoo ah shaqada yar oo la qabanayo caalamka oo dhan la wada socdo dadka Soomaalida oo dhan wada arintan wada raba in la dhiirigeliyaan rabnaa waxa kale iyada laftigeeda maalgashiga dalka oo rabnay in ajaanibta lagu dhiirigeliyo oo ganacsatada localka aan dhowr goor kula taladaarnay anaga iyo dawladaba inaan marka hore ganacsatada localka ay bilaabaan inaan anagu maalgashano dalkeena marka anagu maalgashano ajaanibtuna oo ku soo dhiiranaysa markaas inay nala maalgashtaan arintaas marka waxay keeni kartaa in niyad xoogaa ay ka timaado inaan isla soconin anaga iyo mas'uuliyiinteena qaarkood marka waxaan rabnaa arimahaas idoo faahfaahsanaan waxaan ku soo sameynay warqad war saxaafadeed si kooban ah sida aan rabnay in lagu xaliyo iyo sida ay nala tahay waxaan noo akhrin doonaa agaasimo ku xigeenka aan noo akhrin doonaa kadibna waxaa laba kelmad ka dhihi doonaa gudoomiyaha shirkadda waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta ay taariikhda tahay 1 bisha afraad 2020ka waxaan u joognaa war saxaafadeedkan ka imaanaya rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed cabasho nooga timid shirkadda Barhal iyo shirkadda shamiintada oo Barhal iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay u taagan tahay soo dhisidda xuquuqaha shirkadka gaarka loo leeyahay iyo taageeridda dawladda waxaan u taaganahay ka qayb qaadashada siyaasadaha u daneynaya shirkadaha gaarka loo leeyahay inaan ka dhaadhicino shirkadaha iyo sidoo kaleeto fahamsiinta shirkadaha arrimaha ku saabsan siyaasadaha dawladda
waxaan maanta oo taariikhdu tahay 1 bisha afraad 2020 doonaynaa inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya sidoo kaleeto ku wargelino mowqifka rugta ka taagan tahay baaqa wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku garab istaagay taliyaha ciidanka asluubta ee la xiriira arrimaha shirkadda dhul iyo guri iyo shirkadda warshadda samaysay sawirka la dhaho Barhal. waxaan maanta inta ku sheegaynaa marka taariikh dhexmartay shirkadaas iyo ciidanka asluubta sidii u dhexmaray taariikhdeeda dhabta ah ee dokumentigeeda lahaa. taariikhda marka ay ahayd 5/2/13 khilaaf darisnimo dhuleed oo dhexmaray ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo shirkadda dhul iyo guri ayaa waxaa ka soo dhashay heshiis uu hogaamiye ka ahay horjooga ka ahay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed kadib markii la soo saaray guddi farsamo ee ka socday dhinaca ciidanka asluubta oo xaqiijiyay inaysan shirkadda dhul iyo guri aysan ka deganayn dhul balse dalbanaya ciidanka asluubta in ay ka durugto shirkadda 255 mitir dhinaca isbitaalka Kaysanay. meeshaas waxaa ka soo baxay isafgarad dejiyay xaaladii darisnimo isla markaana ay si wada jir ah u wada saxiixeen qoraal ay heshiis ku wada yihiin labada dhinac. taliyuhu wuxuu si rasmi ah ula xiriiray wasiirka waagaas cadaaladda Dr. Abyan sida ku cad warqadda lifaaqa kuna wargeliyay go'aankii guddiga saraakiisha farsamo ee la meel mariyo. intaas kadib xafiiska wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta dastuurka dib u heshiisiinta federaalka waxaa ka soo baxay warqad sumadeedu tahay wa ga a da ha fa jiitin ha wa qaanso 2/12/35 kuna taariikhsan 11/2/13 ujeedadeeduna ay ahayd sidan: fulin heshiis sugid xuduud dhul dhex maray ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo shirkadda dhul iyo guri Liibaan. sidaasaa shirkaddu ugu durugtay masaafada lagu heshiiyo 255 ahayd dhinaca isbitaalka Kaysanay. taas waxay ahayd shirkadda dhul iyo guri. shirkadda Barhal oo leh warshadda sawirka waxay dhulka ay degan tahay ka kireysatay bangiga dhexe waxayna ka dhistay warshad casri ah kuna samaysay maalgelin xooggan waxayna shaqo abuur ugu samaysay dhalinyaro fara badan Soomaaliyeed oo wax baratay. shirkadda Barhal waxay mudan tahay in lagu abaalmariyo maalgelinta ay dalka ku samaysay hordhacna u tahay maalgashigaas iskaashiga shisheeye iyo weydiinta wax iskaashiga shisheeye iyo wadaniyada. waxaana ciidanka taliska asluubta si aflagaada ah oo aan ka fiirsi lahayn ugu soo gafay shirkaddan. haddaba rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxay soo jeedinaysaa qodobadan. 1 waxaan cambaaraynaynaa hadalkii ka soo baxay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo dhaawacay labada shirkadood dhul iyo guri iyo Barhal. waxaan aad uga xunnahay warqaddii ka dambeysay ka soo baxday xafiiska wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee sumadeedu ahayd wa a ga jiitin ha wa 552/3 jiitin 2020 kuna taariikhsneed 3 bishii 3 2020 taageeraysayna dhaawacii taliyaha ciidanka asluubta u geystay una ekayd mu'aamarad lagu hargardaameynay shirkadahaas. waxaan aaminsanahay haddii la raaci lahaay fariintii ra'iisul wasaaraha oo ahayd inaan
warbaahinta lagu wada hadlin aysanna shirkadahaasi dhaawacaas gaari lahayn oo wada hadal iyo habraac sharciyeed waa lagu xallin kari lahaa. arrimaha noocan ah waxay ka hor imaan karaan ama dhaawici karaan sida hadda aan arkayno maalgashiga iyo horumarinta warshadaha yaryar ee uu daruuriga u ah nolosha iyo dalxiiska iyo bilicda guryaha iyo kobcinta dhaqaalaha dalka iyo soo xaaraynta canshuuro fara badan. waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed inay dhiirigeliyaan maalgashiga dalka, difaacan ganacsatada soomaaliyeed oo hiil iyo hooba u hayo dadkooda iyo dalkoodaba. ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa in falalka noocan ah oo kale inuusan soo laalaaban. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum.